Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan asxaabta qiimaha badan ee ku xiran janalka Aamin Technology isku soo noqod wanaagsan. Insha Allahu tacaala maanta waxaynu qaadan doonaa hadduu Alle idmo cashirkii sideedaad aynu ku baranayno Photoshopka. Cashirkan maanta Alle hadduu idmo waxaynu ku baran doonaa sida loo sameeyo loogada. Sida la socono loogooyinka badanaa la isticmaalo waa kuwo sirkal ah. Waxaa ka mid ah aynu soo qaadan doonaa jaamacadda UNIS oo loo yaqaano jaamacadda Soomaaliya, jaamacadda Jamhuuriya iyo jaamacadda SIU. Hadduu Alle idmo maanta waxaynu design gareyn doonaa saddexdan mid ka mid ah. Haddii aad fahantid mid ka mid intaan inta kaleeto ku mid waayin halka xab haddaynu sameyno labadan kale adigaa samayn karo sidoo kale kan haddaan sameyno labada adigaa samayn karo fadlan haddaa nugu cusub tahay nugu soo biiro channel subscribe dheh nugu soo noqono cashirka insha allahu tacaala hadduu alla idmo saddexda mid ka mid ayaanu samayn doonaa haddii aynu kan sameyno labadan kale waa samayn kartaa waa assignment adiga ayaa isku dayayo waxaa la rabaa inaad ka shaqaysid oo yacni aad samaysid designkan ama mid u eg waxaanu samayn doonaa jaamacadda uniso sidaa la socono design markaa samaynaysa ama loogo waxaa muhiim ah inaad taqaanid cabirka loogada waxaanu samayn doonaa maanta loogo cabirkeeda wuxuu noqon doonaa 5906 cabirkan ayaanu soo qaadan doonaa kadib photoshopka ayaanu tegi doonaa file markaynu doorano new ayaanu kasii dhigi doonaa kadib magac ayaanu u baxsan doonaa loogo cashirkan waxaan dhan hore ayaanu soo baranay cabirka ayaanu ku baasti gareyn doonaa kuub ayaan soo dhahday sidoo kaleeto resolutionkeeda waxaanu ka dhigi doonaa 300 maadaama uu la daabici doono intaa markuu noo soo baxo waxaynu samayn doonaa jaamacadda uniso marka hore waxaanu soo gashan doonaa shapekan ugu koreeyo shapekan waa shape circle ah circle ayaynu soo qaadan doonaa waynu garaagareyn doonaa circle markaynu soo qaadano kadib kalarkiisa waxaynu ka dhigi doonaa kalar bulug ah hadda waa kalar white uma jeedno kalar bulug ayaanu ka dhigi doonaa kalarka inta waa ka bedeli kartaa propertieskan hadduu kaa xiran yahay calaamaddaa soo dooro haddaysan tan ku ilinna window tag kadib waxaa soo dooradaa properties waatana properties kadib asiga ayaa kusoo bixi doona si default ah xaggana kalarka waa ka bedeli kartaa kan markaynu sameyno waxaynu dul saari doonaa shape kaleeto oo caddaan ah inta aanu shapeka caddaanka aanu dul saarin waxaynu jari doonaa horto shape kale waxaynu dul saari doonaa rectangular ah si uu nagu jaro intaas markaynu dul saarno kalarkiisa waxaynu ka dhigi doonaa caddaan sida ujeediin ba hadda xoogaa waa islahaatay balse qaybtan ubuucdan dhexda amaanan jarin ubuucdan waxaynu ku jari doonaa shape kaleeto waxaad la socotaa nidaamo badan loo jiro waa jiraan base nidaamkan ayaanu ku jari doonaa kan ayaan ugu fudud maadaama aad tihiin beginner nidaamyada kaleetona cashirada xiga ayaan idigu tusi doonaa hadduu alla idmo marka wax yar waxaynu ka dhigi doonaa cabirka intaynu jecelnahay intaan ayaanu ka dhigi doonaa taas markaynu sameyno sida ujeediin ba hadda waxaynu sameynay qaybtan koreeto oo buucdaas ayaanu sameynay waxaynu soo gashan doonaa sawiradan waxaan idigu soo diri doonaa barta telegramkana waxaad ka heli kartaa descriptionka sawirkan markaynu soo gashano asigana waynu la ekaysiin doonaa sawirkan saa ujeediin background ayuu wataa waa naga qabsayey sawirka hoose ayuu naga qariyey waxaynu tegi doonaa erase magic erase qaybta markaynu sii doorno tan ugu hooseyso magic erase keliga ayaynu ku dhigi doonaa kadib okay mar labaad kelig saa ujeediin backgroundka hadda waynu iska jarnay sawirka waynu yaray doonaa ilaa aynu la ekaysiino cabirka aynu haysan bas markaynu sameyno waxaynu soo geli doonaa qaybta xigta oo ah koofidan ayaynu soo geli doonaa place linki ha ka welwelin sawiradan waxaad ka heli kartaa telegramka sawirkan sida ujeediin ba asigana wuxuu wataa background ayuu wataa eraseka ayaanu ku jiri doonaa magic erase tool kadib kelig ayaynu ku ridi doonaa okay mar labaad kelig si default waa noogu jariyey kadib waynu yaray doonaa cabirka intaynu rabnaa inaynu la ekaysiin doonaa intaas markaynu sameyno waxaynu usii gudbi doonaa qaybta xigto oo noogu xigto kadib calaamaddaas tigta markaynu saarno waxaynu soo geli doonaa calanka soomaaliya weliba asigoo mid circle ah place linki runtii haddii aad la tahay qof la socday cashiradii horeeto waxaan si easy ayaa ku samaynaysaa si fudud ayaa weliba ku samaynaysaa waxa dhiba ma kaa qaadanayaan balse haddaad tahay qof hadda nagu soo biiray xoogaa waxaa ka imaan doona meeshaas confuse waxaan kugula talinayaa inaad soo daawatay cashirkan cashiradii ka horreeyey sawirkan waan iska xiri doonaa log si uu noo qordhaa kaasna log ayaanu saari doonaa sidoo kaleeto kan kaleetana log ayaanu saari doonaa intaa markaynu sameyno waxaynu soo geli doonaa buuggan asigane
buuggan asigana place link ayaanu dhihi doonaa. buugga ma aynu haysano balse mid u eg ayaanu haysanaa. muhiimadda maaha wixii aynu samaynayna set aynu samayno balse waa inaan design ka samayn karno. sawirka adiga ayaa heli karo, sawirka arrinta meeshaas ku bedeli kartaa. intaas markaynu sameyno waxaynu usii gudbi doonaa qaybtan ugu cusub. waa qaybtan, waa type tool yani ama qoraal, balse waxaan ugu cusub waxay tahay waa circle. qaabkee loo wareejin lahaa, sidee loo wareejiyaa? waxaynu u wareejin doonaa marka hore waxaynu soo qaadan doonaa type tool, kadib waxaynu qori doonaa University of Somalia. waxaan dhihi doonaa University of Somalia. intaas markaynu qorno kalarkiisa caddaan waayen highlight saar, kadib kalarkaas tag, kalarkiisa waxaad ka dhigtaa madow. farta zaid ay inoo waaweyn tahay, kalarka saan u yarayna sizeka qaybtaas tag, dib u celi. intaas markaynu sameyno kadib waxaynu tegi doonaa sidee ugu dhigaynaa. muhiimadda waxa waayen qaab yani circle ah. waxaynu ugu dhigi doonaa marka horeeto waa inaanu saarnaa highlight, double click dheh ama control a dheh. kadib waxaynu tegi doonaa calaamadaas oo tiida ah, waxaana loo yaqaanaa calaamadaas rubber. kadib iyada waxaa ku dhahdaa click. meeshan nanta ah styleka nan waxaa ka dhigtaa arc. kadib hadda sidaa ujeediinba wuxuu noo noqday circle, balse kor ayuu ubucdiisa jirtaa. si aynu yani u dabagedino u wareejino qaybtan hadda aanu wado, dib u celi. intaas markaynu sameyno okay dheh, sawirka waynu ku tuusi doonaa, si ayaanu dul geli doonaa. geeskaas markaanu la ekeeno, geeskan kale waanu kasoo yaray doonaa sidoo kaleeto. sawirka waxaa muhiim ah marka aad design garaynaysid, aad rubber ka dhigaysid, inaad soo yaraysid, qaybta aad la ekeynaysid aad ku size ka dhigtid, yani aad la ekeysid. hadda saa ujeediinba geesaska wax yar kan ayaa banaan ku baxsan, waxbeenaa soo celi doonaa. intaas markaynu sameyno isla rubberka ayaanu ku celi doonaa. mar labaad ayaan rubberka tegi doonaa, highlight ayaan saari doonaa, kadib rubber tag, dib u celi, wax yar dib u celi. naqshadda waa waxa keliya ee lagu kala duwan yahay designka. adiga waxaa laga yaabaa waxaan qurux u arko inaad yani si aad kale u aragtid. designka qaybkaa doontid, naqshaddaa doontid ayaa ka dhigan doontaa, balse muhiimadda waxay tahay inaad rubber loogu sameeyo qaybtaas. sawirtan shift ayaynu la qaban doonaa, wax yar hoos ayaynu celi doonaa. shift la qabo wax yar, geeskaasna shift soo qabo si aad iyadin usoo celid. geeskaas tag, kadib wax yar shift aduu haayo, wax yar intuu celi, wax yar. intaas markaad samaysid, fartan waxaynu ka dhigi doonaa xoogaa bold. waxaynu saari doonaa ama waxaan dhihi doonaa control t. markay yar tahayna waxaan dhihi doonaa shift ayaanu qaban doonaa. ama sidoo kaleeto inaan double click tiraahid, waxaad tegi kartaa qaybtan textiga laga weynayo. bold hadda waa noo saaran yahay, balse qaybtan ayaan wax yar size ku diri doonaa, si uu sawir noogu noqdo far yani la arki karo. intaa markaynu sameyno waynu soo qurqurxiyey, wax kalama sameynin, keliya kan ayaan dib u celceliyey. dib waxaynu samayn doonaa, waxaynu kusoo diri doonaa qoraalkan hoose oo uniso ah. text caadi ayaynu soo qaadan doonaa, kan rubber maahan, rubber ma ka dhigi doono. farta waxaan ka dhigi doonaa bold, kadib uniso markaanu qorno highlight saar, kalarkiisa waxaynu ka dhigi doonaa kalar buluug ah. ilaa intaas ayaynu ka dhigi doonaa. intaa markaynu sameyno geeskaas ayaynu qaban doonaa, wax yar aynu weyney doonaa uniso. si aynu marka sawirkan usoo wada weyneysano, waa inaynu ka qaadnaa marka horeeto qufullada saaran. qufullada soo wada saarnay, dhammaan qufullada kasoo wada qaad, ka qaad. sidoo kaleeto qufull ka qaad, dhammaan qufullada kuu saaran kasoo qaad. kadib hal mar highlight saaro, sawirkaa wada weyney kartaa, waxbaa ka wada bedeli kartaa. xagga ayaynu geysanaynaa, kadib soo weyney sawirka. intaas markaynu sameyno, kan ayana waxaynu soo celi doonaa wax yar dib, kadib highlight noo wada saar, kadib inta noo geey. designkan haddaynu sameynay dhammaan waa design garay kartaa. sidaa ujeediinba hadda waxaynu design garaynay loogada jaamacadda uniso oo jaamacadda soomaaliya ah. haddii aad sameynay jaamacaddan loogadeeda, waxaad samayn kartaa loogooyinkan kaleeto sida jaamacadda jamhuuriya, SIU iyo looga kasto. waxaan ugu cusbaa waxay tahay sida rubber looga dhigo, qortan wareeg, fartaas looga dhigo wareeg.
waxay isdhahaan ma laha keliya sawiradan ay u kala bedel yihiin sawirkan googolka ayaa ka keensan kartaa marka insha allahu tacaala cashirkan maanta nuu yahay fadlan haddaa nagu cusub tahay nagu soo biiro janalka subscribe dheh cashirkan hadda aynu duubi hayno waa cashir sideed waxaa ka horreeya cashir toddobaad iyo cashir lixaad iyo ilaa cashir koowaad waxaan ugu soo baranay sida loo sameeyo idikaar weliba design aad iyo aad oo professional la dunida laga isticmaalo laba design kan beginner ayuu ahaa inuu ku fahanto adigu talagalay kanna waa inaan la jaan qaadno casriga sidoo kaleeto waxaanu soo baranay hosbitaal iyo banaris maqaayad qurux badan weliba iyo hosbitaal iyo laliga ama el classic insha allahu tacaala cashirkan maanta inta ayuu ku egyahay fadlan haddaa nugu cusubtaa nugu soo biiro janalka subscribe dheh waad ku mahadsantaa daawashada muuqaalkan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh